Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadeyda qaaliga meel walba oo dunida aad ka joogtaan waxaa idinku salaamay salaanta islaamka. Salaan kadib sidaad aragtaanba maanta waxaan sameeyay video. Inkastoo aan maalmahan dambe video badan aan soo galinin oo xoogaa aan mashquulay awalbana YouTube-kayga wuu iska cusbay. maadaama maalmahan video soo galin waxaan jeclaystay maanta inaan video sameeyo oo soo gelsho. Waxaan sameeyay video yar oo fudud aad aragtaan casriye yar oo fudud oo aad macaan aad ka heli doontaan insha Allah sida rajeynayo. Ayaan jeclaystay maanta inaan soo galiyo. waana kana sidaad aragtaanba sidaas quruxda badan ayuu eg yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan idinka codsado please haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar, haddii aad ka heshid like commentiga hoos noogu reeba si asxaabtiina iyo friendska iyo familkaba inoo daawadaan sii share gareey si video walba aan soo gelino kuugu soo dhacanay gambaleelka taabo. boqolkiiba boqol waa idin mahadcelinayaa dadkayga cusub ee igu soo biiray iyo inta inay igu soo biirtay jecelba dhammaan waa idin soo dhaweynayaa. Kusoo dhawaada qalbi furan walaalahayga qaaliga ah. haddana waxaad arki doontaan sidaan u sameeyay iyo wixii aan ka sameeyay. Waxaan ka sameeyay rootiga ismariska sida loo yaqaano ama slice haddii aad u taqaanid. waa kaasa haddana waxaad arki doontaan sidii aan u sameeyay daawasho wacan. sida aragtaanba meesha waxaan ku haystaa 2 xabo oo basal ah ayaan ku soo diyaarsaday oo aan soo jaray iyo 2 xabo oo shafka digaaga ah ama doorada. waxa ku jirana ma ahan biyo qal waaye. qal ayaan ku daray qalka cadka waa kaasa. haddana waxaan rabaa inaan sameeyo inaan soo jarjaro basasha iyo digaaga ama doorada sida u taqaaniinba. markii aan soo jarjaro ayaa isku soo noqonaynaa insha Allah. haddana waa kana aniga oo soo diyaarshay digaagii basashii oo aan soo jarjaray. halkan waxaa yaala xabad barbarooni ah. haddana waxaan rabaa barbaroonigii inaan soo yaryareeyo. waa kana waan soo yaryareeyay. waxaa halkaa igu diyaarsan 3 xabo tuun ah. tuuntan waxaan ku duumi doonaa kashi iyo mooyga insha Allah nala sii socda. sida arkaysaanba haddana waxaan soo saartay dabka digsigii. waxaan ku shubi doonaa dooradii aan soo jarjaray ama digaaga sida u taqaanaanba. waxaan ku shubayaa kaligeed waxba biyo kuma daraayo. waxaan jeclahay inay ayada biyaha dhasho ee kadibna biyaha gursato ee qaleysmato. kadib ayaan ku dari doonaa waxyaabihii aan ku daraayay. marka dabka ayaan saaray waa dabkan uu u shidan yahay. haddana waa kana ayadiyo biyihii gursatay oo qaleysmatay. haddana waad aragtaan qaandada ayaan dhex marinayaa. waxaan ku shubi doonaa wax yar oo saliid ayaan ku darayaa si ay ugu la qaleysmato. saliidii ayaan ku shubay waa saliida jikada caadiga ah. sidaas ayaa qaandada dhex marinayaa. kadibna qalkii ayaan ku shubayaa si oo qalka madow ayaan u isticmaalayaa ama qalka cad wixii ay haysatidba way fiicantaa mar walba digaaga inaa qalka loo badiyo dhadhan ayay u yeelaysaa macaan ayay ka dhigtaa qalka. waxyaabo badan aniga aad ayaan u jeclahay inaan qalka u isticmaalo. haddana waxaan ku dari doonaa xawaajiyadii waa maraq digaag haruud organic ah iyo filfil xawaash cusbo. xawaashkaas kalena digaaga ayuu qaas u yahay. digaaga ayaa lagu daraa. xawaajiyadaas markii aad ku dartid caraf ayay u yeelaysaa dhadhan ayay u yeelaysaa macaan. way fiican tahay in lagu darsado haddii ay gurigaada ku yaalaan masha Allah. guri walbana wuu yaalaa kama maqlo. anaga aad ayaan Soomaali markaan xawaajiyada u isticmaalnaa masha Allah carafta aad u jecelnahay. waxaa sidaas hadda ugu jajabinayo waxay tahay inay doorada ay jajabto digaaga sida ugal u jarjaraya waaweyn ahayd. masha Allah saas ayaan dhahayaa. hadda waa diyaar. digsiga ayaan ka bedeli doonaa sida arkaysaanba waan soo bedelay. waxaan ku shubay
birtaawad ayaan kusoo badashtay, basashiina waan ku daray iyo tuntii. Si fiican ayaan isku dhexgelin doonaa, waan walaaqi doonaa insha Allah. Markii aan sidaas u walaaqo, masha Allah, waad arkaysaan. Waxaan rabaa inay basashii karto, waad aragtaan. Haddana sidaad arkaysaanba waxaan ku darayaa barbaroonigii iyo kabsartii ayaan ku darayaa. Sidaas ayaan ugu walaaqayaa si ay isku dhex gasho. Masha Allah, waa diyaar. Haddana waxaan rabaa inaan ku daro wax yar oo caano ah. Ayaan ku shubayaa qaandada muggeeda oo caano ah, kama badinaayo. Sidaas ayaa isku dhexgelinaysaa si ay isku qabsato. Masha Allah, waa diyaar. Carafta ka soo baxayso haddii aad joogi lahaydeen, masha Allah, masha Allah. Haddana waxaan rabaa inaan ku daro cheese oo jarjaran. Saa arkaysaanba cheese-kaas ayaan rabaa inaan ku daro. Kadibna waan walaaqayaa xoogaa markii is dhex galo. Kadib ayaan insha Allah waa diyaar. Laakiin cheese-ka bis inuu ku dhalaalo waa muhiimada. Markuu cheese-ka ku dhalaalo ayaan dabka ka dimin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Haddana sida arkaysaanba waxaa ku haystaa meeshaan rooti. Rootiga ayaan rabaa inaan 4 gees ka jaro. 4 gees oo adag ayaan ka wada jarayaa. Kadibna waxaan sameynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Hadda waxaan isku saaray. Sida aragtaanba hal xabo rooti ayaan soo qabsaday. Haddana waxaan rabaa inaan fidiyo. Markii aan fidinayo waxaan sheeganayaa xoog si awood leh. Ilaahay bur ma aha, waa rooti si uu u fidsamo oo waxaan rabaa sagxad u noqdo. Bushka dhan uu uga baxo. Markaas dhinaca uu ku fidsamay, dhinaca kale ayaa roganaysaa si uu si fiican kuugu sii fidsamo. Kadib markaas tirahdid waa diyaar. Masha Allah, waad dareemaysaa markii uu diyaar noqdo. Haddana sidaas ayaan rabaa inaan ku soo dhameeyo inta ii diyaarsan oo dhan. Insha Allah waa arkaysaan. Marba gees ayaa u rogaysaa si uu si fiican kuugu fidsamo. Markaas geeskan ayuu ka buuran yahayne, geeskuu ka buuran yahay ayaad ka fidinaysaa. Insha Allah waad aragtaan. Sidaas ayaan ku soo dhameynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Haddana waa fidiye, waa aragtaan. Qaybtii kalena waa tana. Kulli waa soo fidinayaa. Markii aan soo fidiyo, aan soo diyaariyo ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. Haddana waa kana markii aan soo dhameeyay. Sidaas ayaan u soo diyaariyay. Halkaas waxaa igu diyaarsan mayonnaise, 2 xabo ukuna iyo rootiga markii aan ku adkeyn lahaa. Ukunta ayaa sidaas u qasaya. Codka aniga ayaa xiray. Xoogaa yar meesha waxaa ila joogeen ciyaalkayga. Hadalkooda ayaa meesha ku jira, markaa waan xiray codka. Sidaas ayaa ukunta u garaacaysa. Waa diyaar. Haddana waxaan soo qaatay rootigii. Mayonnaise-ka ayaa sidaas u marinaysaa. Mayonnaise-kaad haysatid ayaa marinaysaa. Kadibna waxaa qudaartii oo ku diyaarsan ayaad sidaas ugu shubanaysaa. Intii qiyaastaada ayaa ku shubanaysaa. Kadib sidaas ayaa iskugu laabaysaa. Afkana waa isku dhejinaysaa. Haddaad doontidna waad duubi kartaa. Haddaad doontidna waxaad ka dhigan kartaa oo kalaad u isticmaali kartaa sida banooniga oo kaleeto. Haddaad rabtid sida sambuuska oo kale u sameyn kartaa. Marba siyaa u sameyn kartaa. Aniga hadda inta badan wareeg ayaan u sameyn doonaa insha Allah iyo 4 gees. Marka wakaasa sidaas ayaa afka iskugu celcelinaysaa. Isaga ayaa isku celcelinaysaa. Haddii aad doontidna biyo waa u isticmaali kartaa si uu rootigii waa jileec. Haddii uu biyo gaaro wuu jilcayaa, waad ogtihiin. Marka sida adiga muhiimada waa inuu afka isqabsado, saliidana kaa gelin, qudaartina ay kaa soo daadanin. Muhiimada intaas waaye. Marka insha Allah sidaas ayaan ku wadayaa. Markii aan soo dhameystiro oon soo diyaariyo ayaad arkaysaan insha Allah sida uu noqday.
waa inoo marka aan soo dhammaystiro hadduu Ilaahay yiraahdo. Sida aragtaanba waa kaasaha aan soo diyaarshay gabigiisba. Hadda waxaan rabaa inaan rootigii aan galiyo ukunta ayaan dhex gelinayaa. Xoogaa yar markuu sidaas ugu walaaqdid ayaa haddana waxaa gelinaysaa rootiga qalalnaa ee shiidnaa. Asagoo diyaar ayaan soo gatay. Haddii aad rabtid laakiin waxaa samayn kartaa rootiga naftirkiisa intaad qalajisid ayaad shiidi kartaa. Sidaan oo kale ayuu kuu noqonayaa. Wadanka joogno magaciisa waxay dhahaan strawberry ayay dhahaan. Marka waa kaasaa sidaas ayaan sameynayaa. Mid kasta waan gelinayaa. Markii aan geliyo haddana rootigii qaleelkii ayaan marinayaa ama strawberry-kii. Sidaas markaa ugu dhex walaaqo kadib saxankii ayaan sidaas ugu diyaarsanayaa. Saliidani dabka ayay ii saaran tahay sidaad arkaysaanba. Loomana baahno inay saliidda saaid kaaga karkarto. Marka sidaas ayaan kusoo dhameynayaa. Markii aan dabka geliyana waad arki doontaan insha Allah. Walaalayga qaaliga ah waad mahadsantihiin daawashadiina. Please waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe-ka ii saartaan channel-ka si oo idinkugu soo dhacaan gambaleelka taabsada wax walba soo geliya si aad u heshaan. Sii share gareeya. Mahadsanidin dhammaantiin intii la joogtay iyo inta aan rajeynaa inay imaataba. Marka labadaas qayb ayaan u sameeyay waad aragtaan. Qaybna waa afarkiisa ayaan ka dhigay, qaybna wareeg camal aan ka dhigay. Marka waa kaas waa soo dhammaystiraya insha Allah ila sii socda. Sida aragtaanba waan soo dhameeyay waad aragtaan. Intaas ayaan ka dhigay waa diyaariyay maasha Allah tabaarakallah. Saliidina way inoo diyaarsan tahay way kululaatay. Hadda ayaan ku ridayaa insha Allah. Waad ujeedaan waa soo geliyay. Maasha Allah sidaas gaduudka oo waxaa la rabaa dahabiga ah inuu noqdo uusan ka gubanin si qurux badan. Maasha Allah. Waad aragtaan. Hadda ayaan ka saaraynaa insha Allah. Si fiican ayay ugu jeedaan rajeynaya. Maasha Allah. Haddana qaybti kale ayaan hadda ku soo ridayaa. Sidaas ayaan marka ku soo dhameyn doonaa. Markii aan dhameyno oon diyaarinana waa arki doontaan sidoo noqdo. Waxaan diidaa inuu video noogu sii dheeraado. Kule sidaas weyn baan dabka ugu soo ridi doonaa insha Allah. Marka ka sidaas quruxda badan iyo saliidana saaid uma kululo laakiin waa meel fiican. Adiga waa kaasa sidaas ayuu noqday. Qaybtii aan baxshana waa kaasa. Insha Allah markii aan soo dhammaystiro ayaan isku soo laabanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Sida aragtaanba waa kaasa sida quruxda badan noqday. Maasha Allah tabaarakallah. Wada aad iyo aad u qurux badan yahay. Qofkii cuno ayaana dareemi karo sidoo uu macaan badan yahay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad video-gan ka heli doontaan. Meeshasna waxaa igu diyaarsan waa kajab ayaa ku cuni kartaa, mayonnaise ayaad ku cuni kartaa, basbaas ayaad ku cuni kartaa wixii markaas aad jeceshahay. Aad iyo aad ayaan uga heli doontaan tijaabiya insha Allah idinkana barooweya. Wax walba waa la barooweya wax loo dhasho ma jiro wax walbana waa la bartaa waxa waaye saas waaye asxaabteeda qaaliga ah. Marka waxaan idinka codsanayaa please like hanaga mas'uulina noo sii share gareeya gambaleelka taabada si waxa soo gelino aa u heshaan. Commentiga waa idinka xagiina insha Allah. Maxaa la dhahaye waxaan kaloo rabaa inaan idin tuso markii aan kala jabiyo dhaxdiisa oon kala gooyo sida uu noqdo insha Allah dhaxdiisa. Haddana waad arki doontaan. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan idinkana aad tijaabin doontaan insha Allah. Marka waa kaasa haddana waxaan rabaa inaan kala gooyo ama kala jabiyo
Waa weli wuu yara kulul yahay. Ada soo jeed maayo. Masha Allah. Caafimaad iyo nabad iyo nolol insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.